Ma aaminsan tahay daawade in Soomaaliya ay ka mid tahay tobanka dal ee ugu saboolsan adduunka, waliba kaalinta labaad ay kaga jirto? Waxaa laga yaabaa inaadan rumaysnayn, balse muuqaalkan ayaan kugula wadaagi doonaa tobanka dal ee ugu saboolsan adduunka. Fadlan nala joog si aad u hesho xog badan. Bangiga Adduunka waxa uu dalalka ugu saboolsan adduunka u kala saaray kuwa dhaqaalahooda hooseeya. Qiimeynta ayaa lagu saleeyay wadan kasta dakhliga guud ee qarankiisa uu leeyahay. Qiimeyntani waxaa sameysay Hay'adda Lacagta Adduunka IMF. Burundi waxa ay xornimadeeda ka qaadatay Belgian 1962 ilaa 1965. Waxaa ka dhacay colaad qowmiyadeed oo u dhaxaysa Hutu iyo Tutsi. Inkastoo dagaaladii sukeeye ay soo afjartay in ka badan 15 sano ka hor, haddana dalkani waa dalka ugu saboolsan adduunka oo uu ka jiro musuqmaasuq iyo dhibaatooyin amni. Dalka Burundi waxa uu ku tiirsan yahay beeraha, qof walbana waxa uu ka quudiyaa qoyskiisa beeraha. Koonfurta Suudaan, Julaay 9keedii 2011 waxa ay noqotay Koonfurta Suudaan dal ku cusub adduunka maadaama ay madax banaanideeda markaasi qaadatay, waxaana ku nool 11.5 milyan. Dalkani qaniga ku ah saliidda ayaa wajahayo kala qaybsanaan bulsho, mid siyaasadeed iyo mid musuqmaasuqba. Central Republic of Africa ama Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika, in ka badan 5.4 milyan oo qof ayaa ku nool faqriga, iyadoo rajada noolaanshaheeda ay tahay 52% oo kaliya. Republic of Congo, Jamhuuriyadda Congo waxa ay hoy u tahay in ka badan 80 milyan oo hektar oo dhul ah iyo kumanaan macdanta ugu qaalisan dunida. Saas ay tahayna rajada noolaanshiyaha ayaa ah 17%. 90 milyan oo qof ayaa ku nool iyagoo maalintii biisha $2 oo kaliya. Mozambique, inkasta oo ay ku badan yihiin dhul beeraadka, kheyraadka macdanta dabiiciga ah iyo tamarta, inta badan dadka waxa ay ku nool yihiin faqri aad u daran. Niger, dalkani waxa uu ahaa wadan xasilooni la'aan tan iyo markii uu xornimada qaatay. 10 sano ee la soo dhaafay, ku dhawaad kala bar dadka waxa ay ku noolaayeen faqri aad u daran, taasi oo wali ka muuqata heerarka sare ee dhimashadooda. Liberia, fayraska Ebola waxa uu haleelay 10,675 qof oo ku nool Liberia, wuxuuna u horseeday 4,809 qof oo dhimasho ah intii u dhaxaysay 2014 ilaa 2016. Dalkani wuxuu la daalaa dhacayaa faqri, gaar ahaan 3 meelood meel carruurtu waxa ay la ildaran yihiin nafaqo daro. Malawi, dalkani waxa uu u nugul yahay dhacdooyinka cimilada oo aad u xun iyo beerihiisa oo aan si joogto ah wax u soo saareynin. Cunto yarida dalkani waxaa sii xumeeyay dagaalka ka socda Ukraine, taasi oo hoos u dhigtay qiimaha badeecadiisa iyo sicir bararba keentay. Soomaaliya waxa ay ka mid ahayd dalalka sanado badan ay ka jirtay xasilooni darada iyo sicir bararka aadka u sareeyo, taasi oo ka dhigtay dalkani mid aan lagu kalsoonaan karin maalgashigiisa. Sidoo kale, Soomaaliya ayaa aad ugu nugul abaaraha, cunto yarida iyo heerarkiisa hooseeya ee tilaalka. Jad, kadib intaan la helin shidaalka bilowgii qarniga, waxaa dalkaasi ka jiray sharci dhigaya in wax walba la helo lagala tashto dadweynaha kadib intaana la isticmaalin si loola dagaalamo faqriga. Tan iyo 1990kii, dawladdu waxa ay ku bixisay lacagteeda inteeda ugu badan maleeshiyooyinkii, taasi oo keentay hoos u dhaca wadanka halkii ay ku bixin lahaayeen maalgelinta dadweynaha, horumarinta waxbarashada iyo dhisidda goobaha caafimaadka.